السلام عليكم. برتنوا فايدة channel. فضلا سبسكرايب لها ديات كعصبتي. odayaal maanta waxaynu ka hadli doonaa qaaradda Afrika. Qaaradda Afrika waa qaaradda labaad ee ugu weyn dunida sida la xaqiiqsan yahay. Bedka ay ku fadhido aba masaaxada waxa lagu qiyaasaa 30 milyan iyo saayid. Waxa ku nool bulshooyin kala duwan, kala qoomiyadana ah. Tirada dadka ku nool tirikoobyadii ugu dambeeyay waxa lagu sheegayaa inay yihiin 1 bilyan iyo badh. qaaradda Afrika ayaa ka kooban 54 wadan inta la ictiraafsan yahay, halka wadamo kale oo ayagu jira aan weli la aqoonsan. xagga dad ahaan waxaa ugu badan wadanka Nigeria, waxaana ku nool dad gaadhaya 206 milyan. xagga dhulka waxaa ugu ballaaran wadanka loo yaqaan Algeria, waxaana lagu qiyaasaa bedka uu ku fadhiyo dhulkaasi 2,382 kiiloomitir. qaaradda Afrika dadweynaha ku dhaqan 50% waa dhalinyaro amba waa da'yar, waxaana la sheegay inay u dhexeeyaan 19 iyo wixii ka yar. tani waa ta ka dhigaysaa in lagu yeedho Afrika qaaradda koraysa, maadaama ay tahay qaarad dhalinyaro badan. waxaa laga yaabaa inay isbeddel cad ka muujiso dunida, iyadoo Afrika xadaaradii iyo horumarkii dunida qayb weyn ku lahayd, ayaa haddana wadamada tunkas ku yeelaa ka dhigaan qaarad sabool, hoosna u dhigaan sumcadeeda. iyadoo dhibaatooyin badan soo mareen, haddana kamay hor istaagin inay qaaraddu sii jirto, siina horumarto. waana qaarad haddii qaaradaha kale la barbardhigo ugu hodansan. waxaa adduunku isku raacay in Afrika tahay meesha uu aadamuhu ka soo bilaabmay, waxaana aragtidaasi dhabowday markii waddanka Itoobiya laga helay lafa jiray 200,000 oo sannadood. xagga diintii ugu horreysay ee Afrika waxay ahayd Islaam, taasoo Islaamkii ugu horreeyay soo gaadhay xilligii Nebi Nuux. Afrika waxaa ku hareeraysan biyo amba bado, kuwaasoo cilad kasta ka xiga. badweynta Atlantikada ayaa kaga beegan geesta galbeed, badda Mediterranean-ka ayaa iyaduna ka xigta dhanka waqooyi. gacanka Carbeed iyo badda Cas ayaa iyaguna ka xiga waqooyi bari. badweynta Hindiya ayaa iyaduna kaga beegan koonfur bari. waxaa la sheegaa masaaxada badka ay ku fadhido qaaradda Afrika inay tahay 20% baaxadda dhulka. taasina waa ta ka dhigaysa inay noqoto qaaradda labaad ee dunida ugu weyn. waxaa Afrika dhex mara dhulbadhaha dhulka, taasina waxaa ka dhigaysaa inay yeelato cimilooyin kala duwan. dadka ku dhaqan Afrika intooda badan waa madow marka laga reebo wadamada dhaca qaybta waqooyi oo ayagu ah wadamo Caraba. haddaba qaaraddan ayaa ah qaarad dihin oo khayraadkeedii nimcadeediiba haysata. taana waxaa loo tiirinayaa in bulshooyinka ku dhaqan qaaraddu aanay aqoon sii turugsanaanay lahayn. si kastaba, qaaraddan ayaa ka qayb qaadatay horumarka adduunka iyo xadaaradii kala duwanaa, waxaana ku yaala wadamo badan oo soo jireena. daawade, waxaan intaa kusoo koobi doonaa mawduucii ku saabsanaa qaaradda Afrika.